madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegayaa warar hoose ee suuqa ku jira inuu ku fashilmay ama sidoo kale waji gabax uu kala kulmay Newta Jubbaland oo rabay inuu ka aasaaso ee gobolka Gedo halkaasi oo laga dhigi lahaa caasimadda ku-meel gaarka ee maamulkaasi ilaa gacanta loogu soo dhigo hogaamiyaha imika haatan ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. wararka hoose ee laga helayo ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu garab ka waayay wadamadii uu sidoo kale ku tashanayay inay siiyaan hub iyo sidoo kale gaadiid iyo gawaarida gaashaaman kuwaasoo loogu talagalay in lagu aasaaso Jubbaland cusub isla markaana halkaasi gobolka Gedana ay noqon lahayd caasimadda ku-meel gaarka ee maamulkaasi. cidda madaxweynaha noqon lahayd waa reer beesha Mareexaan qof ka soo jeeda isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ee ku matala ahna wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Fartaag ayaa noqon lahaa madaxweynaha maamulkaasi halka Cabdirashiid Jananna uu noqon lahaa hogaamiyaha ciidamada hogaamin lahaa sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. qorshahan fashilmay waxaa la sheegayaa xogaha la helayo in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markii hore oo garab weydiisay dowladaha ay ka mid tahay Turkiga iyo Imaaraadka. Turkiga waxaa la sheegaa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ugu baxeen balankii ahayd inuu aasaaso Jubbaland kadib markii ay fahmi waayeen wax uu damacsan yahay. taana ay sheegaan wararka suuqa ku jirana ay tahay in la fahmi waayay Turkidu ay fahmi waayeen damaca madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. arrintaas waxay kaliftay in dib ay ugu laabtaan in la aasaaso Jubbaland cusub ee lagu aasaasi lahaa ee gobolka Gedo. dhinaca kale waxaa la sheegaa in balankii ay ugu boodeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Imaaraadka Carabta taasoo ahayd in markii horena ay la garab taagnaayeen in dowladda Soomaaliya ay aasaasto Jubbaland cusub. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wuxuu wadaa dhaqdhaqaaqyo culus oo ka dhan ah sidii isagu u kasban lahaa wadamada deriska wax kasta iyaga ay rabaan u sameyn lahaa. Ethiopia, Kenya, Imaaraadka iyo Turkiga waxaa la sheegaa inay oofin waayeen balankii ahayd sidii lagu aasaasi lahaa ee Jubbaland cusub. arrin xasaasi ah oo sidoo kale la sheegay muhiimna ay tahay in la ogaado ayaa diyaar idin lanahay inaan idin soo gudbino. marka hore haddaan nagu cusub tahay nagu soo biir like saar oo subscribe leh ee channelkeena YouTube-keena haddaa Facebook nagala socotidna sii share garay muuqaalka si uu meel dheer u gaaro. bitirku boodboodooya diyaar waa 8 daqiiqo laga rabaa adiga sug oo boodboodooya xasideed YouTube aan kartaa intuu ka damay sugaadiga ay wadahay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonayay inuu aasaaso Newta Jubbaland cusub isagoo u xil saaray wasiir Fartaag iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya sidii lagu aasaasi lahaa New Jubbaland gobolkeedana caasimadda ku-meel gaarka u noqon lahaa ee gobolka Gedo halkaasi loo noqon lahaa fadhiga ugu horeeya oo dowladda ay yeelan doonto sidoo kalena ay noqoto xarun abaabuleed loogu duulayo Kismaayo Axmed Madoobe oo dowladda Soomaaliya oo qoonsan tahay inuu yahay madaxweyne sharci darro ku jooga ee maamulkaasi. halkaas sida la geyn lahaa hub noocyadiisa kala duwan iyo gawaari gaashaaman baabuurta iyo hubka oo kala gedisan oo casriga imika ay soo iibsanayso ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la sheegaa in qorshahan lagu doonayay ama qorshaha xukuumadda iyo dowladda ay ahayd mid dan u ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka shacabkaba taasoo ahayd in gacanta lagu dhigo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ugu horeyntiina la aasaaso maamulka halkaasi ka jiri doono kadibna loo gudbi doono dhinaca iyo Kismaayo. haddii Axmed Madoobe loo sheegana inuu isdhiibo haddii isdhiibi waayana xaggaasi la isla aadi doono xabad ciidamadaasina ay noqon lahaayeen kuwa ka caasiyay ee dowladooda Axmed Islaamna gacanta lagu soo dhigo kadibna deetana la keeno magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya halkaana lagu maxkamadeeyo. waxaa la sheegaa arrinkaasi inuu fashilmay sidoo kalena ay suuragal noqon weysay dowladihiina arrinkaasi rafad buuxa ay ka bixiyeen taasoo ahayd inaysan ogolaanaynin in la aasaaso Jubbaland cusub. weli waxaa taagan aasaaska iyo isku soo ururintii dadka sidoo kale ay doonayaan in la aasaaso Jubbaland cusub ee lagu aasaasi doono qaybo ka mid ah gobol ka tirsan Jubbaland. gobolka ugu badan ee dadkiisa
ay doonayaan sida dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay diyaar u yihiin inay helaan dowlad iyagu maamulayaan isla markaana la aasaasay Jubbaland cusub oo la magac baxayso intay cusubta Jubbalanta deetana loo guurin doono magaalada iyo Kismaayo halka xarunta ee imika Jubbaland Axmed Islaamna uu joogo kadib markii halkaas laga kaxeeyo hogaamiyaha Jubbaland ay halkaas noqon doonto caasimadii rasmiga ahayd ee dowladda maamulka ee Jubbaland maamulka Jubbaland ayaa la sheegaa inuu isagana oo qorsheeyay qorshe culusna uu wado sidoo kalena kadib markii maalmo ka hor ay sameeyeen isku soo bax ee dadweyne oo halkaas lagu taageerayay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam shacabka noocyadiisa kala duwanaa oo la hadleen warbaahinta xilli ay la hadlayeen waxay sheegeen inay diyaar u yihiin iyaga laftoodba in villa Soomaaliya cusubta ee tuul laga aasaaso ee caasimadda ee maamulkaasi Jubbaland ee Kismaayo halkaasina ay u dooran doonaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya halkaasi fadhigiisu noqon doono arinta la yaab kale ayaa ah in shacabka Kismaayo iyo dadka taageersan hogaamiyaha Jubbaland Axmed Islaam ay doonayaan inay aas-aastaan dowladda federaalka Soomaaliya ee labaad halkaasi ka aas-aasaan sida dowladda Soomaaliyaba aysan u aqoonsaneen ee maamulka Jubbaland iyaguna waxay sheegeen inaysan aqoonsaneen ee dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya hadduusan aqoonsaneen hogaamiyaha Jubbaland Axmed Islaam shacabka iyo Axmed Islaamna ma aqoonsana in madaxweynaha Soomaaliya uu yahay Xasan Sheekh Maxamuud villa Soomaaliyana waxaa laga dhisi doonaa caasimadda ee maamulkaasi Jubbaland ee Kismaayo halkaasna sida ay sheegeen ay ku dooran doonaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo fadhigiisa noqon doono ee halkaasi dowladda Soomaaliya waxay wadaa dadaalo xoogan sidii loo aasaasi lahaa ee niyadda Jubbaland maxaa jiri karaa ama baa qorsheysatay dowladda Soomaaliya haddii uu fashilmo niyadda Jubbaland dowladda Soomaaliya weli waxa horyaala qorshe cad ay ku doonayso ama inay ku aasaasto niyadda Jubbaland Axmed Madoobe wuxuu aqoonsan tahay hogaamiyaha halkaasi xoog ku jooga waqtigiisa dhamaaday sidoo kalena dastuurka uusan ogolaanaynin in Axmed Madoobe mar kale uu soo laabto dowladda Soomaaliyana weli go'aankeeda kama aysan soo laaban waxay doonaysaa taa bedelkeeda garab inay ka hesho dowladaha ay ka mid tahay Turkiga Imaaratis Ethiopia iyo Kenya inay garab ku siiyaan aasaasidda niyadda Jubbaland Axmed Madoobe wuxuu shuruudo oo fudud oo waliba oo hagaagsan isaga u dana hordhigay dowladaha kala Ethiopia Kenya iyo sidoo kale Imaaraadku u sheegay in haddii ay la saftaan Axmed Madoobe ay siiyaan hub noocyadiisa kala duwan gawaarida gaashaaman iyo baawur casri ah oo taa Axmed Madoobe uu ka saacidi doono ee dowladahaasi waxa iyaga ay ka doonayaan gudaha dalka Soomaaliya ama gudaha ee maamulkiisaba